السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرحمن المختار. runtii meeshaan waxaa isoo gelisay dan guud. runtii qof bini'aadamka haddii oo dhibaataysan yahay waa qof walaalkaa dhibaato laguma fiirsado. waxaan u baahanahay inaa videogan ii sheer garaysiin oo dowladda ii gaarsiisiin madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha gobolka cusub. waxaan ka codsanaynaa inuu arrinteena naga fargeliyo. aniga runtii xaaskii ruqi waa isjecelnahay. runtii dad jecel isku guursadaan nahay. runtii waan isku kalsoonnahay. runtii haddana waa qof dad isjecel oo dhibaataysanna waa nahay. qof walba oo wax jecel yahay dhibkiisa qofkaasaa wax dareemi karo. runtii aniga qof waxaan jeclaada ahay. runtii gabadhan gabar Soomaaliyeed waaye. waa haddana ilaahay xaaskayga ka dhigay. haddana xaaskayga waaye. runtii waanu ku kalsoonahay. waana igu kalsoon tahay. waana igu qanacsan tahay. marka waxaan u baahannahay hadda inaan aniga xorriyadeena si aan ku heli lahayn inaan aragno. runtii meeshaan shalay dowladnimo aan ula keenay. maanta wax daryaalna meeshaan kuma haasano. xabsiyan nolosheena kusoo koobmatay. runtii waxaan u baahannahay dad oo shaqaysan karan inaan nahay. waa shaqaysan karaa alxamdulilah. weligay waaba shaqaysan jiray. haddana meeshaan waxay igu soo xareysay waxay tahay dhib walba oo dhacay. hadda kama hadlaayo waxaas aniga. hadda waxaan ka hadlayaa dhibka i haasto waxay tahay sida aniga xorriye aan ku heli lahaynay. waa dad namaano aan nahay oo isku kalsoon oo na isjecel alxamdulilah. runtii calafka horta qofka bini'aadamka calafka asiga ma haayo. calafkana anigana ma haayo alxamdulilah. runtii ilaahay mahad iskale. ilaahayna calafkeyga ka dhigay gabartan walaasheeda ruqayya cabdullaahi. alxamdulilah waa isku kalsoonnahay. waan isjecelnahay. shalay go-aankii aan ku taagnayna waa jecelkeena. runtii haddana waan ku taagannahay. waan isku faraxsannahay. waxaan u baahannahay aniga dhibaatadan oo na haasato inaan nagala saaro. runtii waxaan u baahanahay dowladda inay arrinteena ka hadasho. guddoomiyaha gobolka cusub cumar finish waxaan ka codsanaynaa inuu waxa noo qabto. shalay dowladnimadii shalay meeshaan go-aankiina noola keenay inaa haddana lacagtii naagala dhiibo. waan u baahannahay. waa dad oo iska dhibaataysanaa nahay oo haddana is jecel alxamdulilah. ilaah mahadiis waayo. qof walba oo bilaadan ah jecel wuu mari doonaa. waanu arki doonaa qof walba dhibaatadaas mafahanti. aniga runtii waa igu dhacday dhibaatadan. hadda waxaan u baahanahay aniga sidii aniga xaaskayga oo biilo lahaay ama ugu shaqaysan lahaay aan u baahanahay. lacag ilaa 30,000 doolar gaaraysaa lagu leeyahay doolarka Mareykanka ah. marka aniga lacagtaas qof dhiibi karna ma ihi. haddan kaas hidan qof oo bixi karo haddana ma ihi oo nolosheena waa cabsanaynaa. haddana waxaan u baahannahay Soomaali weyn meel kastay joogaan inay videogan ii sheer gareeyaan. qof walba wax qabad leh wax ii qaban karo oo arrintan dowladda igala hadli karo oo dowladda oo arrintan ka bandhigi karo inuu u bandhigo hadalkeena. runtii dad isjecelna waa nahay. waa noo jeediin alxamdulilah. haddana wiila ilaahay nagu soo biiriyey. waa kaas wiilkeena axmed doole yaraa lahaa magaciisa axmed doole. alxamdulilah ilaahay awlaadaas iga siiyey. dad maantana oo meel qaltay karna ma lehe. waa haddana dad maasha allah ilaahay awlaad dhexdeena soo geliyaan nahay. waxaan u baahannahay sidii aniga xorriye aan ku heli lahayn. caalamka waxaan ka codsanaynaa inay arrinteena inuu lacagtaana dhibiyo anka meeshaan dowladnimada lagu soo gelisay. haddana meeshaan xorriyad mutaasan xabsi camal ku haysan. dowladda waxaa ka codsanaynaa inay lacagtaana dhibshar dhigiisa waana keen ilaa una xariisto. guddoomiyaha lagu bedelo waxaa ka rabnaa inuu lacagtaana dhibiyo. aniga ninkii nolosha kalsoonaan oo iskacelna maxaan dad kala tagi karna ogaadana. wallaahi taas waa haddii aan runta ka hadlno waxay tahay shalay aniga meeshaan waxaa noola keenay dowladnimo.
runtii saas tahay ilaa u naxariista madaxweyne jariiso garab nagu siinayay hadda nin garabkeena waa ka baxay ilaa u naxariisto garabka ka wada baxay janno allaha ka waraabiyo hadda aniga waxaan ka hadlaynaa maxay tahay runtii dad isjecel oo dhibaataysanna waa nahay oo haddana awlaad ku xiriirto awlaadaan nagu xiriiro wiilaa ilaahay nagu soo kordhiyey oo boqolow ah caalamka waxaan ka codsanaynaa inay garabna siiyaan oo arrinteena hataa haddii dalka la geey karaa hataa inay la geeyaan waxaan u baahannahay runtii dad cabsanayana waa nahay meeshaan haddana cabsin waa ugu sii jirnaa lacagna ilaa $30,000 oo gaarisaa la iska rabaa waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysiin muhiimadeena waxay tahay inaa ii sheer garaysiin haddii hataa waxaa ii qaban karin waxay tahay inaa ii sheer garaysid adina ilaahay waxawaaye qofka bilaaadmiga dhibaataysana adina aa u sheer garaynaysaa wax dhibaata kaama soo gaarayo walaalkayga walaashayda ii sheer garaya video ninka waraale ah haddana waxaan u baahannahay madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa garabna siisid oo meeshaan xorriye la-aan nagu haasaa hotelkan waxaan u baahannahay inaa hotelkan oo lacagta nagala bixiyo oo lacagtooda la siiyo anigana sidii xorriye aan ku kala lehna inaa helno waan u baahannahay shalay dowladnimo iyo magac dowladeed aan kusoo galnay meeshaan aniga socona ma soo gelin shalay dowladdiina keentay waxaan ka codsanaynaa inay garab siiyaan oo lacagtan ilaa $30,000 gaarayso inay taasaan ka codsanaynaa waxaan u baahanahay walaalahayga iyo walaashayda waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysiin videogan runtii waa noo jeediin waxawaaye hadda eber 2 ahaanay haddana ilaahay 3 oo naga dhigay waxaan u baahannahay marka inaa wax noo qabataan oo noo sii sheer garaysaan ninka waraali ah walaalahayga qof walba oo bilaadan ay dhibaato way ku dhacdaa anigana ilaaha naga saaro intii musana dhibaato ku jirta ilaaha ka saaro gudoomiyaha gobolka cusub waxaan fariintaan u direynaa gudoomiyaha gobolka cusub waxaan ka codsanaynaa inuu booskii injineer Jariiso Allah u naxariistay inuu noo buuxiyo oo lacagtan hotelkan uu leeyahay inuu naga bixiyo runtii waxay tahay shalay aniga meeshaan dowladnimaan la keenay shalay dowladnimadii noola keenay aan u baahannahay maanta inaa dowladnimadaas wax noogula qabto shalay lacagtan hotelka dowladnimo loo bixinayay maantana waxaan u baahannahay inaan dowladnimo loo bixiyo hotelkan lacagtiisa oo anigana sida helno waxaan u baahannahay inaan video noo sheer garaysaan noo sheer gareeya video muhiimadan waxay tahay inaan noo sheer garaysaan caalamkan oo la wadaagtaan dhibaatadana haysato dadna waa nahay oo haddana isku kalsoon oo jecel haddana awlaad ilaahay kusoo biiriyey waxaan u baahannahay inaa muhiimada waxay tahay inaan noo sheer garaysaan oo dowladda naga gaarsiisaan oo madaxweyne farmaajo xasan khayre waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka kulli inaana oo naga gaarsiisiin oo u baahannahay ninka walaali ah aniga waxaan nagu leeyahay lacag runtii sano hotelka waaba nagala jartay hadda muhiimada waxay taagan tahay inaa sida xorriye aan ku heli lahayn inaa caalamka eedaha kulli meel kasta joogaan naga gaarsiiya walaali ah qof walba bilaadan ah hadduu wax noo qaban karo wuxuu wax nooga qaban karaa videogaas inuu noo sheer gareeyo qof walba bilaadan hadduu wax noo qaban karin waxaan u baahannahay video noo sheer garaysaan qof walba oo maanta oo jecel soo maray mise jecel oo ka saaxiib waa dareemi karaa oo jecelku wuxuu yahay runtii aniga dad isjeclaan nahay
runtii hadda ma loo jeedin inaa dhulkeena lagu oonayo marka cunug yar hadduu kugu soo kordho oo haddana wax maayo ma kasaayo marka meeshaan aniga waxaan usoo gelisay dan ma aniga haddii maanta oo dhan xuriya aan nahay haddii ahaa lahaanay runtii waa soo gali lahayn laakiin intii noo sheer garaysay oo ku maasantihiin waxaan u baahannahay dowladda inaa naga gaarsiisiin mise hay-adaha adduunka inaa naga gaarsiisiin fiidiyooyan hay-adaha caalamka inaa naga gaarsiisiin aqoon insaanka naga gaarsiiya dowladdeena waxaan ku codsanaynaa inay lacagtaan ay naga bixiyaan aniga waxaan nahay dad oo isjeclo oo lamaanayaal ah oo runtii haddana xorriye ah haysanin muhiimadda waxay tahay qofka inuu xorriye oo helo haddana xoogaa lagu oonayo walaalahayga ininka waraale ah ii sheer gareeya videoan caalamkana waxaan rabaa inay ii gaarsiisiin dowladda xukuumadda Soomaaliya inay ii gaarsiisiin madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya anigoo waraale ah gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya fariintan waxaa isu gelinaa meesha waxay tahay qof oo awlaad ku xiriirna ma ahay oo dumar ku xiriirto maanta qof shaqaysan karana ma ihi muhiimadeeda waxay tahay inaa ii sheer garaysaan oo dowladda ii gaarsiisaan waxaan u baahanahay madaxweyne farmaajo waxaan u baahanahay inaana caawiso meeshaan aan ku dhibaataysannahay shalay meeshaan wacad dowladeeda noola keenay haddana dowladnimadii noola keenay shalay ma haasano madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa meeshaan wax nooga qabato dowladnimo waxaan noogu qabatid hotelkan lacagteeda naga bixisid sidaa xorriye nuu sii leedahay inaa na siisid gudoomiyaha gobolka cusub waxaan ka codsanaynaa unafanish gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa hotelkan lacagtiisa shalay ilaa u naxariistay madaxweyne jiray adina waxaan kaa rabnaa sidoo kale inaa naga dhiibtid lacagta hotelkan noola leeyahay shalay dowladnimaa noola keenay haddana dowladnimada shalay noola keenay walaalayaal ii sheer gareeya ninka waraale ah ii sheer gareeya waxaan rabaa inay la wadaagtaan caalamka oo la wadaaga fiidiyooda ninka waraale ah 4 mitir aan ku jiraa runtii waxay tahay danta i haysto waxaa kamid tahay inaa 4 mitir aan ku jiro oo meel aan lugteeda u dhaqaaji karin meelna lugteeda ma geeyi karin wallaahi bilaahi talaahi runtii waxay tahay nin walba oo runtaan u arkayo inaha ka daboolan sidii wax noo qaban lahaa inuu raadiyo qof walkiina ahay videoan ii sheer gareeya ii gaarsiiya madaxweyne farmaajo gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya unafanish ii gaarsiiya video aniga waxaa hotelkan ku dhibaataysanahay aan ku xiranahay qof walba oo wax jecel waa dareemi karaa dhibka i haysto qof walba wax jeclaadoon waa dareemi karaa dhibka i haysto ani danta ingiliisa meeshaan tahay aniga oo tan ugu horeyso aniga qoftaan walaashayda ah ilaahay calafkeyga ka dhigay ma ahan in ani liigu dhawaateeyo runtii shalayna ilaahay garab iyaayay maantana insha Allah ilaahay garab igu siinayo ani wax qalad ah ma sameynin nin walba oo calafkiisa ana cid ka hor istaagi karta ma lahan ani runtii ilaahay calafkeyga ka dhigay gabartaan walaashayda ah weli ani waxaan aqoonsanahay qofka bilaadanka inuu bilaadanimada inuu wax ka saayo
waxaan u baahanahay videogan ii sheer gareeya ninka waraali ah ilaadimadu waxay ku jirtaa inaa adduunkan uu yahay aakhir nin walbo marka waxaan rabaa si muslimi igu sheer gareeya ee ii gaarsiiya madaxweyne farmaajo runta waxay tahay qof oo califkay ilaahay ka dhigay ma ahan inay u caasaan inay u dhibaateysaan maanta aniga wax alla xaggiisa ku qoran cid hor istaagi kartaa ma jirin anina ilaahay xaggiisa wax walba igu qornaayeen calafkaygana ilaahay ayaa ka dhigay ma ahan inay igu caasaan ani waxaan rabaa oo maanta iga baahanahay sidaa garab igu sii lehdeen haddii wax ay qaban kara ii sheeg wadaag madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub waxaan rabaa inaa ii gaarsiisiin video ninka waraali ah lacag ilaa 30,000 dollar gaaraysaa liigu leeyahay runtii man ka bixi karo hotelkan hebel horaa u cabsanayay haddana waxay tahay lacag liigu sii leeyahay inaa caalamka ila wadaagtaan videogan eedaha meel kasta ii gaarsiiya aqoona insaanka meel kasta sidii wax liigu qabo lahaayay taas igu dadaal ninka waraali ah qof walaalkiina ahay igu dadaala sidii ay ugu gaarsiin leedahay eedaha adduunka joogaan meel kastay joogaan caalamka madaxweyne farmaajo xasan khayre waxaan u baahanahay inay ii gaarsiisaan gudoomiyaha gobolka cusub cumar finish intaba ii gaarsiiyay ninka waraali ah haddana ani waxaan u baahanahay muhiimadeeda waxay tahay sida ani xoriyaan ku heli lahay awlaadeena aan u yeelan lahay haddana waxaan rabaa inaan videogan aan ka baxo runtii waa ku mahadsantihiin intaa ii sheer garaysay si walaalnimo igu sheer gareeya iyo la wadaaga adduunka caalamka meel kasta joogaan soomaali waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysaan videogan ninka waraali ah farmaajo waxaan ka codsanayaa inay caawiso waxaan dhibaateysanaa waxay tahay shalay meeshii dowladda i geysatay oo u geysay amaanta ku dhibaateysanahay xorriye la-aan aan ku ahay 4 mitir aan ku xiranahay madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanayaa inay waxa ii qabato dowladnimo soomaalinimo muslimnimo intaba waxay ugu qabato madaxweyne farmaajo gudoomiyaha gobolka cusub cumar finish waxaan ka codsanayaa gudoomiye inaa waxa iga qabato hotelkan lacagta liigu leeyahay shan waa liiga bixi jiray waxaan ka codsanayaa maanta inaa iga bixiso calaf leh waa dareemi karaa qof walba oo calaf leh waa dareemi karaa dhibkii haysto intuu dunida ku nool yahay dhib oo arkaa waxaan u baahanahay inay caawisaan oo ii sheer gareysaan video ii sheer gareeya madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya gudoomiyaha gobolka cusubna ii gaarsiiya isbitaal xasan khayrna ii gaarsiiya videogan ninka waraali ah waa ii jeedaa inaan dhibaateysannahay qof walba oo wax garad leh waxaan ahay awlaad ah waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video inta ii sheer gare kartaa ii sheer gare
si walaalnimo igu sheergaray anigoo mahadsan. Video aan ila wadaaga caalamka waa ku mahadsantihiin. Video aan ii sheergaray waa mahadsantihiin. dowladda waxaa ku codsanayaan inay meeshaan bishalay ka meeshaan keeneen gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub waxaa ku codsanayaan inay meeshaan baxsho lacagta hoteelkana oo ninka dhiibo shaqaanika meeshaan waxaa la keenay balan waxaan oo sameynaa waxaana manala qabanin waxaa ku codsanaynaa xorriyadda ninka meeshaan iskaga baxno. sida muhiimadda waxay tahay inaa sida xorriyadeena aan ku heli lahayn aan u baahannahay. waxaan u baahannahay inaad noo sheer garaysaan videogan inka walaalahayga. hadda aniga video kuma dheeraa karo runtii sheer gareeya oo mahadsan. aniga mar labaad mar saddexaad waxaan usoo galaya waxay tahay danta ahaaso awgeeda usoo galayaa. marka walaalahayga waxaa muhiimadda ee taalo waxay tahay waxaase u dhaceen lama dhaho, wax walba xag ilaahay ku qoran yihiin. waxaan u baahanahay in ay caawisaan oo wax ii qabataan oo madaxweyne farmaajo ii gaarsiisaan inuu lacagta naga dhiibo. ra-iisul wasaare xasan khayre inuu lacagta naga dhiibo igu gaarsiiya. gudoomiyaha gobolka cusub inuu finish waxaan ka codsanaynaa gudoomiye waxaan ka codsanaynaa garab na siisid oo lacagta naga bixisid oo hotelkan uu leeyahay $30,000 ah. ii sheer garee walaalahayga ii sheer garee anigoo mahadsan oo raaliya igu sheer garee videoan caalamka wala wadaaga videoan. dad oo namaanayaal isjeclaanahay oo haddana dhibaataysan waa isku kalsoonnahay runtii waxay tahay haddana dad walaada haasanaa nahay ilaahay wiil oo boqoloo na siiyey. dad oo maanta oo meel ku kala tagi karna ma lihi, dad isxumay karna ma lihi, dad walaalaa nahay oo haddana si kale oo si Soomaaliya isku jeclaadeen si muslimnimo ah ma fahanti. haddana shalay aniga go-aankan nigoo dhaxnay waa isjecelnahay waana isku dhimo doonaa wax walba oo dhaco iska maarno dad isjeclaa nahay. anigan waxaan rabnaa inaa nagu caawisaan sidii Soomaalinimo iyo bilaadanimo iyo muslimnimo. intii adduunka la jooga walaalayahay intii oo adduunka joogta qof qaban kartaa aakhir nin walba tiisa ahaasato. anigan waa mahadsantihiin walaalahayga ii sheer gareeyaan videoan aada u mahadsantihiin. ayadaha adduunka waxaan ka codsanaynaa inayna caawiyaan oo xorriye ayna siiyaan sida xorriye aan ku heli lahaynay. xorriye ma haysano 4 mitir aan ku odannahay runtii 30,000 lacagoona waan nagu leeyahay. dad hore waa cabsanaayana waa nahay, waa dad cabsanaayana waa nahay. banaankana xorriye ahaan ku barkarno runtii lacagna waa nagu leeyahay. videogan ii sheer gareeya walaalahayga ii sheer gareeya videogan inkoo mahadsan. adduunka meel kasta joogtaan ii sheer gareeya dal iyo dibadba. videogan ila wadaaga caalamka adduunka arrinteena u bandhiga. qof walaalihiina nahay videogan caalamka u bandhiga sidii aniga waxa noola qaban lahaay oo noola caawi lahaay oo garab noola sii lahaay. intaas haddii nagu samaystaaba ku mahadsantaha walaalkayga. sidaasaaba wax noogu qabatay adoo mahadsan walaalkayga iyo walaasheeda adoo mahadsan.
sidaas aba wax noogu qabatay video muhiimadda waxay tahay adigu dad noo gaarsiisid oo dadkii wax noo tari lahay oo noo caawi lahay videoan noo share gareeya muhiimadeena waa taas sida dad oo na caawiyo Soomaali waa la helayaa adduunka meel kasta ay joogaan video noo share gareeya dal iyo dibad meesha aad joogtaan igu share gareeya insha Allah ilaahayna khayrka ilaahay uu waafajiyo nin walba oo khayr lehna ilaahay khayrkiisa Allah u saalo idinkana waa ku mahadsantihiin video noo share gareysaan anigoo runta idin sheegay waxay tahay qofka sida oo ilaahay calafkiisa ku sahlo waa loo caawiyaa ma loo diido runta waxay tahay inay igu caawisaan qoftaan walaasheena ah runtii ilaahay calafkeyga ka dhigay runtii waxaan kulli shay calaf waaye haddana calafkeyga oo ilaahay ka dhigo haddana ilaahay walaad iga siiyey meelaa ku xumeeyay ma taagnay meelaa ugu tagay ma taagnay haddana waxaa rabaa inaa igu caawisaan oo garab igu siisaan oo caalamka oo la wadaagtaan dhibaatadeena caalamkana oo la wadaagtaan videogeena usoo bandhigtaan sidaan dhibaataysana waa noo jeedaan sida xuri la-aan sidii markii ilaa haddataan aniga meelaan ku xarinahay muhiimadda waxay tahay inaan fiidigaan noo sheer gareysaan oo caalamka oo la wadaagtaan walaalahayna waa mahadsan noo sheer garee dowladda waxaa ku codsanayna inay lacagta naga dhiibshan meeshaanaydi dowladnimaana u keenay haddana waxaa naga hoostaa lacagta anaka meeshaan shan anaka miiska imaanin dowladana keentay dowladana lacagta naga dhiibto gudoomiyaha gobolka banaadir waxaa ku codsanayna inuu lacagta naga dhiibo iyagoon waansan iyagan noo gaarsiiyo mahadsantiin walaalaheega meesha ugu bixinaa videoan intii noo share gareysay walaalaheegana ah waa ku mahadsantihiin intii wax noo qabatayna waa ku mahadsan yihiin nin walba oo qabashadooda waxay tahay adoo ii share gareysay runtii ila wadaagtay dowladda iyo runtii caalamka taasaaba waxa noogu qabatay aan ku mahadsantahay adayna walaalkeyga oo waqti noogu bixisay aad ugu mahadsantihiin muhiimadda waxay tahay inaan noo sheeg gareysaan videoan oo caalamka adduunka meel walba bandhigtaan dhibaatadana haysato nin walba bilaadan dhibaato way qabsataa waan ka baxaa insha Allah khayraan idin rajeynaynaa ku mahadsantiin walaalaheega sidaasna ugu bixinaa videoan waa mahadsan